واتحنهني حكمتها وكان خليك صار سبسكرايب نكو دفو كمبرال كافرو سو كسو غالا مقال كستا السلام عليكم نين علوش حنونسا ayaa yimi dhakhtar waxaan ku yiri dhakhtar علوش ayaa xanuunaysa waxaan cunto baariya hadaba doctorku waxa weegay indhihii uu safeeyay ninkii wuxuu ku yiri doctor indhuhu xanuun ma inay علوش ay xanuunaysa wuxuu ugu jawaabay si aad mar dambe u cunto noocaas oo kala baan indhaha kugu safeynaya talo doctor kasta ma noocaasa xajaaj ayaa dadkii maamul jiray ku dhaheen waa tafiirtii samuud isniinta uu fuulay minbar ayaa ku yiri ilaahay ma oran wasamuud fama abqa wala macnaa idikmay harin qoomkii samuud nin ayaa waxa uu qabay gabar saddex xun gabadhaas markuu ka tago ninku ay isku diri jirtay ninkii gabadhiisa subaxii dambe ay wax iska hor yimaadeen wadadii saddexdii dadna waxay ka wareysatay ka waran heerkaagii wuxuu ugu jawaabay heerka markaa ugu caafimaad qabay si hadeer ay beelaya ku socotaa beeladan wuxuu ka jeedaa saddexdii idan intay faantay bay dib isaga noqotay nin ayaa jeclaaday gabadh waxaana ka wareystay saaxiibkii wuxuu ku yiri saaxiib gabadhaasan jeclaaday ka waran saaxiibkii waxa uu ku yiri saaxiib gabadhan nin ayaa dhunkanayay ninka hadba ninkii waa u nacay gabadha waa iskaga tagay ayaa kadib waxa uu arkay gabadhii oo guursaday ninkii saaxiibkii wuxuu ku yiri saaxiib sawdig lahaa gabadhan nin baa dhunkanayay waxa ugu jawaabay tii saaxiib aabaheed buu ahaa nin ayaa guursaday gabadh curyaana iyada oo qarisay kadib ayaa uu ogaaday waxaan u tagay sheekha gobolka wuxuu yiri sheekhow gabadh ayaan soo guursaday curyaana way qarisay miska celiya sawaan haystaa wuxuu ku yiri sheekhi tartan haddaad la galayso iska fur haddii kalena hayso nin ayaa furay mariya cusub waxaan u yiri hadda la furay soo gaariyaan ka dhamaan inta kadib waxa ag mareysay gabadh markaa la soo furay iyaduna oo dalqadeedii la soo siiyay kadib waxay tiri warhana ceebeen bal kugu dhacday ninkiina way caayday juxa ayaa nin weydiiyay goormaan dhimanaya ninkii wuxuu ugu jawaabay marka dameerkaagu uu ciyo dhuuso isku daro kadib subaxda kamid ah ayuu dameerkiisa ciyo dhuuso isku daray hadaba juxa ayaa wax soo qaatay kafan waana istuuduubay meel ayaa u seexday nin ayaa soo maray oo ku yiri warii sheeg wadadii heblaayo wuxuuna ku yiri warberiga noolaa halkaas ayaa loo mari jiray isagoo isku haysta mayd juxa ayaa laga dhigay imaam markii salaadii laga baxay ayaa nin baa ku yiri juxow codkaagu aad buu macaanaa wuxuu ugu jawaabay waliba saasoo ay tahay dahaaro maan qabin nin ayaa ku ducaystay waqtiga afurta sawjad saalixa isagoo tuu qabeynaa ag fadhido kadib waxay jiraan ku ducaysan sawjad saalixa ee ku ducayso irsaaqad xalaala way wad haysataa sawjad saalixa sheekalna waxay ahayd gabadh ayaa isku eegtay muraad kadibna waxay aragtay gabadh la mid ah yacni sawirkeedii waxayna tiri soo ninkaygu gabadhan buu ila qabaa sidii baana isku xanaaqeen wassalaamu calaykum